Saciid Cabdulaahi Deni ayaa kaalinta saddexaad ka galay doorashada madaxtinimada Soomaaliya bartamihii bishani ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Saciid Cabdulaahi Deni wuxuu ku jiray dadkii loo saadaalinayay xukunka dalka, laakiin xisaabtu uu isticmaalay iyo midii xamar taalay ayaa aad u kala duwanaa marka loo eego kaalinta uu ka galay doorashada. Deni wuxuu haystay qiyaas marna sax ahayd marna qalad ahayd. Wuxuu fahamsanaa in asaga iyo Farmaajo wareegga koowaad hogaamin doonaan doorashada, kadibna labada ku xigta ay tanaasuli doonaan, markaas kadibna codadka mucaaradka oo dhan ay asaga dhankiisa u soo weecan doonaan, sida ay aaminsanaayeen Saciid Cabdulaahi Deni iyo taageerayaashii dhanka ololaha ka taageerayay. Xisaabta Saciid Cabdulaahi Deni marka doorashooyinkii hore la waafajiyo waa mid saxnayd, laakiin uusan aqrin in midowga musharaxiinta mucaaradka ku heshiiyeen in midka ugu codadka bata inay xoojiyaan. Isagu kama tirsanayn midowgii musharaxiinta mucaaradka ahaa ee fadhigoodu ahaa hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. Taasina waxa ay sababtay in midowga musharaxiintu ay yoolkoodii heshiiska gaarka ahaa weeciyaan ama ay ku hagaan dhabbadii ay hore ugu heshiiyeen. Natiijada Saciid Cabdulaahi Deni waxaa laga fahmay in uusan wax olole ah ka dhex samaynin maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo xubno ka mid ah kuwa waqooyi laga soo doortay ee baarlamaanka ku jira. Codadka uu haystay waxay ahaayeen kuwii Puntland iyo Jubbaland oo qaar ay baxsadeen ama ay gacantiisa ka baxeen. Deni wuxuu u muuqday nin gaaray qaar ka mid ah waxyaabihii hadafka u ahaa ololihiisa, qaarna gaari waayay marka loo eego halka uu ka istaagay doorashada. Saciid Cabdulaahi Deni wuxuu juhdi weyn ku bixiyay sidii uu u garabsan lahaa cid walba oo doonayso in nidaamkii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo meesha laga saaro. Saciid Deni inkastoo uu xukunka qaadan waayay, haddana wuxuu abuuray fursad reerkooda ah oo la xiriirta doorashada 2026. Haddii uu Farmaajo xafiiska ku soo noqon lahaa, waxaa hoos u dhici lahayd fursadda beesha Saciid Deni, taasoo ah beel ay labadoodu ka soo wada jeedaan marka loo eego doorashada dadban ee dalka Soomaaliya ka dhacayda. Deni hadda waxa uu ka tegay iyadoo ay reerku fursad u haystaan doorashada xigta ee madaxweynaha Soomaaliya. Dhinaca kale, kursiga ra'iisul wasaaraha, tani waa fursad ay weli su'aal saaran tahay. Waxaa la warinayaa in Saciid Deni uu jeclaan lahaa inuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya noqdo. Waa rabidda uusan qofna dafiri karin marka loo eego abaalkii uu ergaday Saciid Cabdulaahi Deni ee ahaa xoojintii Xasan Sheekh Maxamuud. Lama hubo in Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbali karo in Saciid Cabdulaahi Deni uu noqdo ra'iisul wasaaraha, xitaa haddii Deni la siin kursigaas. Waxa uu talo xooggan ku yeelan doonaa qofka imaanaya xafiiska. Inuu ra'iisul wasaare helo waxay ku sii hayn kartaa fooqa sare iyo inuu damiciisii madaxweynaha Soomaaliya cusboonaysiiyo, laakiin ilaa iyo hadda ma cadda cidda ku soo bixi doonta kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Walow ay qoonto ahaan la filayo ama ay yeelan karaan beelaha uu ka soo jeedo Saciid Deni. Saciid Deni waxaa loo arkaa mid ka mid ah labada qof ee qarashkii ugu badnaa ku bixiyay doorashadii dhammaatay ee Soomaaliya, inay xukunka ku iibsadaan codadka isla markaana ay ku soo baxaan. Deni isagoo guul iyo guul darraba xambaarsan ayuu ku laabtay Puntland. Haddii uu waayo xilka ra'iisul wasaaraha, halkaas uusan meel kale kaga dhaqaaqin ayuu Saciid Deni ku talagalay, maadaama uu doorashada galay asagoo haya xilka madaxweynaha Puntland. Khilaafka asaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Karaash lama yaqaano sida uu ku dhammaan karo. Shacabka reer Puntland ayaa aad ugu riyaaqay sida ay waraysiyo kala duwan ku bixiyeen inuu Saciid Deni door weyn ka qaatay in Farmaajo dibadda loo saaro, taasoo hoos u sii jiidi karta shacbiyadiisa sida weyn u taageersan Puntland ee uu maamulo. Marka loo eego aragtida dadka reer Puntland qaarkood oo aaminsan in Saciid Deni
uu taageeradiisii farmaajo ka lumiyey isla markaana weeciyey taas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku macnaynayaan fursad dahabiya oo xilka beeshu ay lahayd oo uu qasaariyey balse Siciid Deni ayaa yoolkiisu ahaa inuu asagu helo boos u gaar ah siyaasadda meel sare kaga dheeli karo waana mid hadda loo saadaalinayo in loo magacaabo igmado xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya NTN TV mar walba kala soco warar iyo barnaamijyo ku xiiso geliya oo xaqiiqda ku salaysan NTN TV